heshiisku qiimaha uu diinta ku leeyahay waxaa caddaynaya ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyada iyo awliyadiisa iyo dadka mu'miniinta abuu ku sifeeyey saa awgeed baa in ballanka la oofiyaa waa dhaqan nolosha ku fiican diintuna ay xoog u tilmaamayso saxaabadii iyo nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam waxay ku caanbaxeen ballanka inay oofiyaan waana taasi sabab ka mid ah sababaha dadku ay si fudud ugu raaceen nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari iyo muslimba warinayaan ibn cabbaas uu warinayo abu sufyaan markuu hiraqal u tegey gaalkii u talinayey dowladdii byzantiyiinta romanski ayaa abu sufyaan ibn alxarbi oo gaalaba la kulmay dabeetana nigo su'aalaa dhex maray si uu u hubiyo waraaq buu nebigu u diray waraaqdaasi ciddan ay ka timi bal inuu nebi yahay iyo inaanu ahayn buu rabaa inuu hubiyo wuxuu ka hubinayaa inuu ninkan taariikhdiisa iyo noloshiisa baadho waayo qofka beenaala ah iyo qofka nebigii isku dee dhaqan maaha nebigu waa dee qofka bini aadam u run sheeg badan ilaahay ku doortay ka beenta sheegaya kaan nebiga ahayna nebi sheegtayna dee waa dadba ninka u been badan dabeetana su'aal uu weydiiyey dhowr iyo tobanka su'aalood ee uu weydiiyey waxaa ka mid ahaa muxuu idin faraa wuxuu yidhi wuxuuna faraa salaada iyo sadaqada sidqiga runta iyo cafaafka dhowrsanida iyo alwafaa'u bilcahd wa adaa'i alamaana ballanka in la oofiyo ammaanadana in la guto hiraqal wuxuu ku yidhi markaa haadihi sifatu nebiy kanaad sheegaysaa waa sifo nebi buu yidhi waxyaabuhu weydiiyey hiraqal abu sufyaan ibnu alxarb oo markaa gaala wuxuu weydiiyey hal yaqdir ma khiyaameeyaa wax ballanka intuu galo ballanka ma ka baxaa markaasuu yidhi laa kama baxo wakadalika alambiyaa'u warusulu laa yaqdiruun buu yidhi haddaba waa sidaa nebiyada iyo rusushu ballanfurka ma yaqaaniin yacni waa sifada lagu garto ambiyada calaamaadkooda koowaad waxaa ka mid ah inay yihiin dad ballanka fuliya ilaahayna qur-aankiisa abulambiyaa ibraahim markuu ammaanayey waxa lagu ammaanay waa ibraahim aladii wafaa ibraahimkii oofiyey wuxuu ilaahay ballan la galay faatamahunna ibraahimkii dhammaystiray baa la yidhi wax kastoo ballan oo ilaahay uu la galay ama amar iyo nahyo alla faray waa aqbalay bale xad buu gaadhay la yidhaahdo wiilkii qudha uu haystay gowrac oo uu aqbalo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku sifaynayaa caynkaa wiilkiisii ismaaciil ahaana nebiyullaahi ismaaciil ilaahay wuxuu ku tilmaamaya wadkur fi lkitaabi ismaaciil innahu kaana saadiqa alwacdi wa kaana rasuula nebiya nebi ismaaciil la sheeg baa la yidhi innahu kaana saadiqa alwacd mid ballankiisu waxa uu yaboohaa amase uu ballan qaadaa ay dhab tahay buu ahaa baa ilaah yidhi wa kaana rasuula nebiya baa la yidhi waxyaabuu ballan qaaday isagana maxaa ka mid ee qur-aanku inoo sheegay satajidunii in shaaa allahu min alsaabiriin aabbihii markuu yidhi riyaan ku arkay anigoo ku gowracaya maxay kula tahay wuxuu yidhi yaa abati ifcal maa tu'mar wixii lagu faray yeel satajidunii in shaaa allahu min alsaabiriin waxaad i heli doontaa anigoo kuwa sabro ka mid ah yacnii wuxuu u ballan qaaday aabbihii inuu adkaysanayo sabrayo isla aayaadka ku xiga ilaahay inoogu tilmaamay inuu sabray falammaa aslama watallahu liljabiin baa ilaahay yidhi markay labadooduba isdhiibeen idan waa sifada ambiyada lagu yaqaanaa waa ballanka inaanay ka bixin